أهلا وسهلا داوديال ميل كستاد جوجتان كسو دوادا برنامجكي سبورتيو حالبا مالين كستاد كلا سعوتان بارتين عيار وناكسان داوديال ميل كستاد جوجتان وراكي ودن بأن كويغن عيارها ما انتصوا عن كويغ دونا عياريان جادون سانشي او كلن كعاوا سوبا كابكي دالكا جرمانكي على غربي شعد الرسمي كوضا كوبا داعكتيا بروشي دوتماند ألونزو لغيابي إنو لمدو معلنكي سهوري كونتي يوفنتوس oo soo gashay wadahadalay ku qaadeen ciyaaryahan Hussein War ciyaaryahan Ross Barkley oo rasmi ugu biray kooxda kubadda cagta Aston Villa Jose Mourinho amaan duldiga ciyaaryahan Sergio Reguilon Hazard oo markale dhaawacyo ay soo gaadeen kulanka caawa kooxdiisa Valladolid kama qanaan doono iyo waliba warar kale oo goosgoos ay kala socon doontaan Barcelona ciyaaraha latest tube فلادات كعصوب تايم ماتي مركو هورسا صبغتي سبسكرايب نوصار سوكل كل فوق جنبل الكسواد هيشو فيديو كاستان سودين نو بارتشينا عياري كلن كعاوي سوبر كيب كي كودا كبود عكتي بايار يو كودا كبود عكتا بروشا دوتماند ايا مدعيسله waxaa soo kaleetay kulanka laga diiwaangeliyay in shacda rasmi kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund laga waayay ciyaaryahan Jadon Sancho kooxdiisa ku qiimeynaysa 100 milyan wararkan ka helino wargeyska The Bild ee kasoo baxay magaalada Munich ayaa sheegay in ciyaaryahankani la sheegay inuu xanuunsan siiba dhanka feeraha in laga hayo soo kaleetay wararka qaar oo la hubinaya waxaa sheegay ciyaaryahankan la helay cudurka halista ee COVID-19 balse Twitter-ka qaar hadiyaan eegno ayaa waxaa lagu arkay ciyaaryahankani la filayo inuu ku biro kooxda kubadda cagta Manchester United siiba kooxaha qaarkood daalarka ciyaaryahanka inuu rabo inuu iska tago kooxda kulamada ma ciyaaraan sababtoo ciyaaryahankaasi niyadiisii ma joogto ayay yidhaahdeen haddii aan sida kale u dhigno ciyaaryahankan ayaa aad u jeclaan inuu ku biro kooxda kubadda cagta Manchester United balse United ayaa kooxda kubadda cagta Borussia diyaar kula 90 milyan ciyaaryahan Jadon Sancho la hadlayo wargeyska Bild ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu la ciyaaro saaxiibkiisa Rashford waxalbo la filo maalmaha soo socda ciyaaryahan Alonso ayaa la filay inuu ku biro kooxda kubadda cagta Inter Milan uu maamulo macallinkii hore kooxda kubadda cagta Chelsea Alonso ayaa kulanka Newcastle aan moodaa in aad u xanaaqay tababaraha iminka kooxda kubadda cagta ee Chelsea Super Frank Lampard Alonso ayaa inta badan qaybta dambe ciyaarta ku dhameystay baska kooxda kubadda cagta Blues balse lama humo waxay noqon doonto لاعبka kooxda kubadda cagta Leon Hussein Or ayaa iminka waxaa soo galay radistiisa kooxda kubadda cagta Juventus kooxda kubadda cagta Arsenal ciyaaryahankan ku doonaya 45 milyan balse kooxda kubadda cagta Lyon ayaa ilaa iminka war rasmi ka saarin ciyaaryahankan iskaga tago kooxda soo kaleetay tababaraha kooxda kubadda cagta Juventus Pirlo ayaa sheegay inuu ciyaaryahankan xiiseynay inuu keeno magaalada Turin ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Chelsea Barkley ayaa si rasmi ugu biray kooxda kubadda cagta Aston Villa si oo taageerayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa arintani aad u xanaaqay qaadkood waxaa leeyihiin Barkley haddii la siin lahaa fursad dahabiya waa ciyaaryahan ay u baahantay kooxda kubadda cagta ee Blues qaarna waxay yireen intii fursad la siiyay ciyaaryahan Mount haddii la siin lahaa ciyaaryahan Barkley kooxdu wax weyn ayuu u tari lahaa iyo waliba hadalooyin kale oo fara badan ayaa Twitter-ka ka soo qoreen taageerayaasha kooxda kubadda cagta Chelsea tababaraha kooxda kubadda cagta Frank Lampard ayaa sheegay tallaabadu qaaday inay tahay mid sax ah لاعبka kooxda kubadda cagta Tottenham iminka ku soo biray cagay kooxda kubadda cagta Real Madrid Sergio Reguilon ayaa waxa amaan dulligay tababaraha kooxda kubadda cagta Spurs Jose Mourinho the special one kaasoo ku tilmaamay ciyaaryahanka u baahantay kooxda kubadda cagta Tottenham waana ciyaaryahanka u qalmi lahaa in la siiyo man of the match walba ay noqotay kooxda kubadda cagta Spurs ayaa 5-4 uga badisay kooxda kubadda cagta Chelsea qadib markuu qasaariyay gool kulaad kooxda kubadda cagta ee Chelsea ciyaaryahankooda Mount kaasoo keentay in Spurs ay u gudubto wareegga kale Carabao Cup-ka ciyaaryahan Hazard ayaa moodaa in ay soo gaartay dhaawac kale caga iyo muruqa kaasoo kulanka caawa kooxdiisa kubadda cagta wajahada kooxda Valladolid laga saaray
waxaa sidoo kaleeto ciyaareen Hazard labada kulan ee kooxda kubadda cagta Real Madrid laba Blancos ay ciyaareen uusan fursad u helin inuu ciyaaro. tani waxay ku noqonaysaa in Hazard ay tahay musiibo kale. tababaraha kooxda kubadda cagta Real Madrid Zinedine Zidane ayaa sheegay in tani ay tahay mid aan la qaadan karin, weliba mustaqbalka Hazard ee kooxda kubadda cagta Real Madrid uu yahay mid imika galay joho kale. isla wararkii Hazard halkii ayaan uga tagnay. imika waxaan eegaynaa koobka Carabao Cup aad moodeen habeenku caleetiya kooxda kubadda cagta Tottenham iyo weliba kooxda kubadda cagta Chelsea ay foodeys dareen. qaybtii ugu horeysay kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa hal gool ku hogaaminayso ciyaaryahan Timo Werner oo iga soo biray xagga German siba Bundesliga. kooxda kubadda cagta RB Leipzig ayaa gool aad u qurux badan u dhalay kooxda kubadda cagta Blues, balse qaybtii labaad daqiiqadii 83 ciyaaryahan Lamola ayaa goolka barbaraha u dhalay kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur, kaasoo keentay in ciyaarta la isla aado ilaa iyo gool kulaad, waxaana sida 5-4 ku badisay kooxda kubadda cagta macallin Jose Mourinho. barnaamijkii sported kala socoteen ciyaaraha la testub aqyaaray waana intii aad u mahadsantiin waqtigiina.